هيرتر هذا ثانيه تو سلامينا تيك توك تد kala kiciya baasha oo shirt iyo maxaan ku raada comment iyo like ta la dhaco oo shir sports soo biiranayo oo barnaamijkeena dhanka Manchester United kaliya oo ma janjeero sidoo qorig in xagga Manchester oo laga hadlayo idinka soo baadan iyo Liverpool waa laga hadlayaa oo Man City laga hadlayaa Arsenal baa laga hadlayaa kooxo badan oo hadda soo adkaaday El Clasico iyo Liga laga hadlayaa marka waxa la aadayaa Serie A Talyaaniga la aadayaa Inter iyo maxaan ku raada Juventus iyo AC Milan iyo waxyo dhan baa laga hadlayaa okay siyadu aan adii hoos ku soo galay labadii kulan u dambeysay Liverpool seen caadi ma loo garaacay Champions League hadii noqoto iyo hadii ahaan lahayd Premier League ba bal todobaad sano socdana sabtidina waxa la ciyaaraysan Chelsea la ciyaaraysan bal maxaad filaysan kulanka isaga niyo horta labadii kulan ee ugu dambeysay aad aan looma garaacin kulanna 2-1 baan looga badiyay kulanna 1-0 baan looga badiyay labada kooxood oo naga badiyayna Crystal Palace waa kooxda kaliya hadda Premier League aan la garaacin oo form bay ku jirtaa macallin fiican oo haysataa kooxdaas marka si guud bay u adag tahay marka maalinka ayada ahna howlaha ku furnayo kooxda buuq baa ka jiro joogta ciyaalkiisa iyo geerida iyo howlaha lagu jiro waxa gartay taas ahayd tan kala sataray Turkiga kala sataray maxaan ku raadayay garoonkeedu waa garoon aan la gali karin wali Liverpool taariikhda hore looma hayo intay tagtay in halkaas ay guul ku soo gaartay gurigaasi marka waa adag yahay sideeda banaanba marka oo man Spain karo labadaas guul daro oo maxaan ku raadayay iska ahaa kuwa aan aad u adkayn oo man Spain karo in maxaan ku raadayay xil ciyaareedkan uu mugdi gelin karo haddaan halkaa uga nimaadno Chelsea baa la ciyaaraysan todoba hoos socda sabtida hadduu leedmo sax Chelsea-na afartii kulan u dambeeyay saddex asaan bay qaadatay kulankaasi maxaad filanaysan niyo kulanka Joe Pedro oo red ka qaatay xitaa waa soo laabanaya kulankaas uu dheelayaa ciyaartoy badan oo ka maqnaan oo imaanaysa oo kuwa red kaar qabay iyo kuwa dhaawacay jiray fasaxi baa la aadayayo maxaan ku raadin inta fasaxi la aadeen kadib waa kulanka maxaan ku raadayay la dheeli raba kadibna fasaxa la raba in lagu aado koox walbana ay rabto in maxaan ku raadayay gidaarka ay la soo fariisato iyadoo guushii ugu dambeysay gaartay xilli fasaxina la aadayo qaramada maxaan ku raadayay lagu kala maqan yahay marka waxa isleeyahay boorka iska soo jafi doonaa kulankaasi waxa iska soo dhaqi doonaa labadii gool darre ugu dambeeyay waxa soo celin doonaa rajadii godka ku dhacday ahayd in aan tartamada Premier League Champions League maxaan ku raadayay sida dadka qaar ay aaminsan yihiin oo maxaan ku raadayay kooxaha qaar xifaaltana ay aaminsan yihiin in rajadaasi soo nooleynaan rabnaa waliba guul aad u ballaaran baan rabnaa inaan maxaan ku raadayay Chelsea ka gaarno hadduu rabbi qadaro Chelsea sidaan wada ogsoonahay waa koox aad u xoogan ciyaartoy aad xeersan ay haysato waa kooxda kaliya la dhihi karayo bedelka u fadhiya iyo kooxda 12 garoon ku jira saddex leen ab heli kartaa saddex leen oo Chelsea heli karaysa wasleenahay sax marka bal kooxdaasi maxaa ka filanaysan waa maasantahay shiina su'aashaas daan ka jawaabo kulankani waxaan isleeyahay maxaan ku raadayay wuxuu noqon doonaa kulan adag oo maxaan ku raadayay derbi ah Chelsea waan ognahay ciyaartoy dhamaantood aan 25 sano wax gaar ay ku jirin oo yaryar oo shub bay haysataa hase yeeshee macalinka wali waxa uu ku guul dareysanayaa in shax maxaan ku raadayay dahabi ah oo 12 ciyaartoy muhiim ah oo isfahansan inuu meesha ka soo saaro wali waa ku guul dareystay ilaa hadda ma hayo marka ma haysto marka shax isku aadan oo nidaamsan ma haysto Liverpool maalmihii ugu dambeeyay khalkhal baa ka jiray ciyaartoydii cusbeed waad ogtahay 5 ciyaartoy oo muhiim u ah kooxda oo maxaan ku raadayay kooxdii qaaday Premier League ugu dambeeyay ayaa kooxda laga diray bedelkooda la keenay inay isla qabsadaan waqti bay qaadanaysaa Alexander Isak oo 3 bilood tababar qaadanin baa kooxda istiraako ah ciyaartoydii maxaan ku fid ahaanshihiisa wali waa la tacaaliyayo fit dhameystiran wali muu noqonin marka fit and form marka ku soo laabtaan isleenahay maxaan ku raadayay waxaan ku raadayay wax badan isbedelaan marka maxaan ku raadayay isbuucan siyadu hada halkaasi aan su'aalkaasi dhex weydiiyo Alexander Isak waa ciyaartoy heer caalami ah koox Newcastle baa ka soo qaadateen lama dhihi karo ciyaartoy hadda Premier League la qabsanayo oo u baahan inuu Premier la qabsado u baahan ma ahan tababar ku filan wuu qaatay hadda Champions League iyo habeen hore ciyaarayeen isoo wax saameyn ku lahayn yuu garoonka ka baxay haafka dambe uu soo galay bal hadaba maxaa ka filanaysaa ninka isaga ah marka isku barbardhigay isaga Ekitike keebo ayaa ku soo baxay isleedahay shaxda Liverpool nin waa maasanta Alexander Isak 3 bilood ugu dambeeyay Brisbane wax tababar oo qaatay ma jiro khilaaf buu ku maqnaa kooxdiisu isku dhaxsanaayeen horyaalka markii hadda uu furmayay
unba maxaa ku yidhahdaa ninkan Liverpool kusoo biiray isagoo 3 bilood jirkiisa aan wax dhidida ka keenin oo tababarno almiinta sameeynin kooxdiisa khilaaf bay ku kala maqnaayeen taas baa keenaysa marka in jirka fit ahaanshihiisa dib loo soo celiyo laakiin dhanka la qabsiga markay imaado Alexander Isak striker la mid ah oo kubadda soo raacanaya oo qaadanaya maxaa ku yidhahdaa in Premier League laga helayo ma aaminsan Haaland baa jiro laakiin Haaland influensiga Isak uu garoonka ka dhex sameyn kara kama dhex sameynayo laakiin waa finisher fiican oo kubadda hore ka dhameystiraya marka Isak waxaan is leeyahay shaki lama gelin karo mar walba وهاي أدود مع سنتيا هاي